qarnigii 12aad waxaa soo baxay buug qarsoodi ah. Buug lagu tilmaamay inay ku qoran yihiin qoraalada ugu halista badan ee soo maray dunida Islaamka. Buug ay ka buuxaan sir aad u fara badan. Xitaa magac uu xabaarsan uu yahay mid cabsi ku beera dad aad u fara badan. Shamsul Macaarif al-Kubra. maanta waxaan ka jawaabi doonaa su'aalo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin waa kuma qoraaga buuggan. Buuggan kaliya ducooyin ma qoran. Buugga maxaa ka dhigay in culimo badan ay mamnuucaan. Shamsul Macaarif al-Kubra waxaa qoray Ahmed bin Ali al-Buni. wuxuu ahaa caalim suufi oo noolaa qarnigii 12aad. Buuggan wuxuu isku darsaday cilmi xidigis, xisaab iyo ducooyin. wuxuu noqday kitaab muran badan ka dhex dhaliyay culimada. waa kuma qoraaga buuggan. al-Buni wuxuu ku dhashay magaalada Bonn ee dalka Algeria qiyaastii sanadkii 1150. wuxuuna ahaa suufi culimo diineed iyo qof xiiseeya cilmiga qarsoon. noloshiisa inta badan wuxuu ku qaatay safar isagoo tagay Masar, Andalus iyo Sham. wuxuuna qoray buugaag badan oo la xiriira ducooyinka iyo asraarta Quraanka. balse Shamsul Macaarif al-Kubra ayaa ugu caan noqday isla markii uu qoray, kaas oo dhaliyay muran aad u fara badan. kitaabka maxaa ka dhigay mid culimo badan ay mamnuucaan. qaar ka mid ah culimada Islaamka waxay sheegeen in Shamsul Macaarif ay ka buuxaan waxyaabo ka hor imaanaya diinteena Islaamka, sida in la adeegsado jinka si loo helo awood gaar ah. qaar kalena waxay difaaceen qoraaga oo ah al-Buni, iyagoo sheegay inuu u qoray ujeedo suufi ah oo cilmi iyo duco ah. iyadoo la isweydiiyey su'aalo ah sixir iyo diin ma wada socon karaan mise buuggan ayaa isku daray. kitaabkan lagu tilmaamay inay ku jiraan talaabooyin sixir ah sida sabiro, xisaab, ducooyin loo adeegsado in lagu gaaro awood. tani waxay dhalisay su'aal weyn: ma cilmi diini ah buu ahaa mise sixir cad? laga soo bilaabo Andalus ilaa Hindiya, buuggan wuxuu si weyn ugu faafay dunida Islaamka, waxaana lagu hay jiray maktabada qarsoon, waxaana loo adeegsan jiray dad doonaya inay helaan awood gaar ah. dalal badan ayaa laga helay qoraallo ka soo baxay Shamsul Macaarif. ma jiraan cutubyo oo la qariyay oo aan weli la arkin. waxaa jiray doodo fara badan oo ku saabsanaa in buuggan uu lahaa cutubyo qarsoon oo aan weli la dhammaystirin. qaar ka mid ah cutubyada la hayo waxay ka hadlayaan xisaabta qarsoon, xidigiska iyo sidii aad u maamuli lahayd jinka uuna u qaadan lahaa amarkii aad siiso. laakiin buuggan dhab ahaantii waa halis. Soomaaliya dhexdeeda buuggan waa laga yaqaanaa, laakiin maxaa loogu dhuumin jiray oo loo qarin jiray? markii aan ka hadlayno awoowayaasheena, dhaqan ahaan Soomaaliya waxay sheegi jireen in buuggan lagu qoriyo meesha ugu hooseysa ee aqalka, waayo waxaa lagu sheegay inuu leeyahay awood aan innaba caadi ahayn. qaar baa sheegaya inuu awowgood hayay buuggan, balse uu ka baqay inuu akhriyo buuggan. haddii aad furto aad akhriso, labeena qanaya inay dhibaato kaa soo gaarto buuggan. horta way kaa soo gaaray haddii aad akhriso buug. haddii aad sii raacdo calaamaduhu kuu sheegayana way ka sii daran taaba. markii aan dhahno dhanka kale, Shamsul Macaarif ma cilmi baa mise waa khuraafaad? qaar ka mid ah aqoon-yahanada casriga ah waxay ku doodeen in buuggan uu yahay isku day hore oo la iskugu daray astronomy, xisaab iyo duco. laakiin dadka diinta ku adag waxay ku tilmaameen khuraafaad khatar ah. maxay tahay sababta loogu digayo inay dadka akhriyaan buuggan? dalal badan oo Islaam ah ayaa mamnuuca buuggan, sida Masar iyo Sacuudiya, ayagoo sheegay inuu sababi karo jahwareer caqiido iyo xidurtii ku dhicista sixirka. su'aal u baahan jawaab: maxaa isku xiray xidig iyo tiro? Shamsul Macaarif wuxuu isku darsaday cilmiga xidigiska iyo tirooyinka xisaabta si loo fahmo awoodda qarsoon. tani waxay ahayd meel ay dad badan ka murmeen. kitaabkan waxaa ku jira ducooyin iyo aayado la sheegay inay leeyihiin awood gaar ah. qaar baa rumaysan inay yihiin ducooyin caadi ah, qaar kalena waxay rumaysan yihiin inuu yahay sixir la isku geegeeyay. buuggan waxaa ka dhashay sheekooyin badan oo quseeya sixirka iyo caqiidada. fanka iyo suugaanta buuggan waxaa lagu xusay meelo aad u fara badan. waxaa la sheegay jilayaal iyo fanaaniin qaarkood ay ka soo xigteen qisooyin ku saabsan buuggan. xilligii la qoray ilaa maanta, Shamsul Macaarif wuxuu sii wadaa inuu noqdo mid dhaliya muran aad u fara badan. qaar baa u arkay inuu yahay dhaxal suufi iyo cilmi, qaarna waxay ku tilmaameen inuu yahay sixir khatar ah. su'aashu waa, maxaad adigu u aragtaa? dhanka ay ku mateen oo reeb. bye bye.